بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan qiyaarta nala socota meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada tabin kale oo aan uga hadli doono xogaha ugu dambeeya ee ka soo kordhaya bariga dhexe iyo waliba xiisada oo daqiiqada ka dambaysa si kululaanaysa haddaba Israa'iil tilaabooyin kale qaaday Carabtii tilaabooyin ay qaadayaan xaaladu waa adag yihiin sirdoonka wadanka Turkiga waxa la leeyahay Israa'iil ayuu ka shaqaystay haddaba maxaa cusub sida laga helayo madax kala duwan oo ka socota wadamada Carabta ayaa maanta gaaray magaalada Doha ee caasimadda wadanka Qatar waxbay karkarinayaan ujeedadu waxay tahay bal in Carabtu ay xilliga intii ay goor tahay isdaba qabtaan mar haddii Israa'iil ay bilowday inay si weyn u goodiso ay hadba dacal ku duulayso weerarana ay dhacayaan Doha maanta madaxda gaartay waxaa ka mid ah madaxweynaha wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta dambaal adag ayuu wada fartaayuna ka saaray boqorka wadanka Qatar Tamim bin Hamad Al Thani warbixin ayaan idin kaga hayaa Israa'iil qaybo kamid ah wasiiradii ayaa ka ashqaraaray waxyaabaha ciidamadooda ay sameeyeen qaar kamid ah waxay leeyihiin tilaabooyinkan waxay yaxyax gelinayaan hoggaankan iyo xitaa meelaha qaar inaan ka hadalno wasiirka arrimaha istiraatiijiyadda qaabilsan ee Don Dermer la yiraahdo ayaa Mareykanka la wadaagay waxay uu Netanyahu sameeyay inuu isaga wax shaqo ku lahayn wixii ka yimaadana uu qaadan doono ra'iisul wasaaraha looma dhamaynayo golaha wasiirada in kooban ayaa tilaabooyin iska qaatay oo waxay rabeen iska sameeyeen horbaan idin kaga hayaa oo aan idin kugu sheegi doonaa intaana waxa la yiri sirdoonka wadanka Turkigu waa mid mucjiso ah marka dhinac kasta laga fiiriyo ka waran haddii nimanka weerarka lagu qaaday ee wax iska caabinta Falastiiniyiinta ka tirsan toddobaad ka hor hay'adda MIT da wadanka Turkiga ay ku yiraahdeen waa la idinku soo socdaa ogaada xaaladiina haddii kale si baraad la'aan ah la idin beegsado ma Turkiga oo kaliya ayaa yiri maya sirdoonka wadan kale oo Carbeed ayaa sidoo kale xogtan la wadaagay weerarkan marka inuu dhacayo waa la sii ogaaba Doha ka dhacay waa la sii ogaa nimankana waa loo sheegay dhagta kor u taagnayd marka waxyaabaha keenaya qaarkood xitaa in ay ka badbaadaan oo bartilmaameedka sidii la rabay uusan noqon waxa kamid ah xogtan oo la sii ogaa sidee sirdoonka wadanka Turkiga wax badan ku ogaadeen barnaamijka ayaad ku ogaan doontaa waxa raaci doona Israa'iil waxa u muuqato in wadamada Carabta aysan waxba ka reebin oo dhinac kasta duulaan ay ka qaadaan aragtidii Israa'iisha weyn waa la hirgelinayaa hal la ogolaado ama yaa la ogolaan Carabta saas inay fahmaan ayaa maanta la joogaa waxa la dhisay guuto cusub oo kamid ah ciidamada Israa'iil waxay ka howlgali doonaan aaga wadanka Jordan Urdun wadanka u taqaano guuto ciidamaha loo dhiso halkaas la geenaya talow iyana mala la qiraba warbaan kaaga haya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan isugu ka dari doonaa iyo wararka diblomaasiyadda bariga dhexe oo aad u karkaraya waxaan ahay Cabdicasiis Barrow YouTube channel-ka aad daawanaysaan waa Cabdicasiis Barrow iyo barnaamijka Barrow Show soo dhawaada akhyaaray subscribe soo saara halkan si aad xoga iyo macluumaad badan aad u heshaan haddii dhinaca Facebook aad nagala socotana follow ina soo dheh aad baad u mahadsantiin soo dhawaada mar kale ma ogtahay in dhakhtar Shaafici aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka ugu wanaagsan qaliimada dalkeena Soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horeeyay ee wax ku qala qalabka casriga ah ee laparoscopiga ama laserka maalin waliba wuxuu heegan kugu yahay isbitaalka Shaafici ee magaalada Muqdisho ee hore u gaar sirdoonka wadanka Turkiga waxa uu sameeyo looma dhawaan karo warbaahintii Mareykanka ayaa daboolka ka qaadaya hay'adda sirdoonka dalka Turkiga ee MIT la yiraahdo ee Dr. Ibrahim Qalin uu hogaaminayo in muddo toddobaad ka hor nimankan weerarka lagu qaaday Doha deganaa lagu yiri waa la idinku soo socdaa xog baan helnay dhagtiina kor u taagnayd haddii kale baylah baa lidinka helayaa wargeyska ka soo baxa carra Mareykan la yiraahdo Wall Street Journal ayaa waxa uu leeyahay toddobaad ka hor ayaa nimankan la yiraahdo Hamas loo sheegay in lagu soo maqan yahay sirdoonka wadanka la yiraahdo Turkiga iyo wadanka la yiraahdo Masar ayaa xogtan gaarsiiyay markii ay heleen warbixin dhameystiran digniintu waxa ay tilmaantay ayaa la yiri in hogaamiyaasha loo sheegay in ay suuragal tahay in weeraro ay kaga imaan karaan dhinacaas iyo waliba Israa'iil waxana lagu yiri weerarka ugu horeeya waxa uu dhacayba ka dhici doona baa la yiri magaalada Doha marka Doha xataa markaad joogtaan hamoodina meel ammaan ah inaad joogtaan dhagtiina kor u haya marka digniintu waa balaarneed waxana ay muujinaysaa
inay nimankan badbaadaan xataa ay qayb ka ahayd oo sirdoonka waddanka turkiga uu sii ogaaday. marka Rajab Tayyip Erdogan sirdoon adag oo birlaba ayuu haystaa, taas oo hadda xitaa ka xanaajisay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Israa'iil oo hadda dareemaya in laga warhelayo xogaha iyo waxa ay qaadayaan. dhinaca kale waxaa soo baxaya mas-uuliyiin kala duwan oo Israa'iila in ay hadda leeyihiin waxaa noo muuqanaya weerarkan marka la qaadayo inaan annaga nagala tashano wax xoga aynan ka hayn. sidaa daraaddeed ra-iisul wasaare Netanyahu iyo xubno kooban oo golaha wasiirada ah arrintan ay ku sheekaysteen iyagoo qaxwo cabaya kadibna waxay rabaan sameeyaan. telefishinka CNN ee Maraykanku laga leeyahay ayaa warbixinta qoray. waxa uu leeyahay mas-uuliyiin Israa'iiliyiin ah oo sare ayaa isku dayeen inay iska fogeeyaan mas-uuliyadda weerarkii diyaaradeed ee salaasadii shalay lagu weeraray saraakiil ka tirsan dhaqdhaqaaqa wax iska caabinta Falastiiniga ah ee ku sugan magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. Ron Dermer, wasiirka amuuraha istiraatiijiga ah ee Israa'iil, ayaa u sheegay saraakiil Maraykan in uusan ogeyn qorshaha weerarka markii uu la kulmay ergeyga Maraykanka ee Steve Witkoff maalintii ka horeysay duqeynta. marka waxaa muuqanaysaba ninkan inaanu waxba ogeyn sida uu isaga ku doodayo. sidoo kale hay-adda sirdoonka ee Mossad mas-uulka ugu sarreeya ayaa sheegay u sheegay dhexdhexaadayaasha Maraykanka iyo Qatar in uusan wax warag ka hayn weerarada ilaa ay dhaceen. si kastaba haatee ila ka tirsan Israa'iil ayaa sheegay in uu ogaa qorshaha ninkan Mossad ka tirsan waa agaasimaha hay-adda sirdoonka dibadda, balse uu diiday baa layidhi howlgalkaasi inuu ka qayb galo. Netanyahu iyo Israa'iil Katzna ay ku adkaysteen weerarkan inay qayb ka noqdaan oo la bartilmaameedsado dhinacyadan kala duwan. wararka ayaa tilmaamaya in doodihii ugu horreeya ee ku saabsanaa weerarka la qabtay Isniintii, halka ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu si rasmi ah u ansixiyey salaasadii waxya ka hor inta aan la fulin. Netanyahu ayaa hadal soo saaray ku sheegay howlgalka lagu bartilmaameedsado hogaamiyaasha argagixisadu waa mid Israa'iili ah, innaga ayaa qorsheynay, innaga ayaa fulinay, innaga ayaana mas-uuliyaddiisa qaadanayna. marka si ogaala oo dhammaystiran ayaa daboolka looga qaaday, wax la qariyey oo halkan ku jira maba jirinba. dhinaca kale safiirka Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay Tony Danon ayaa carabka ku adkeeyey in dalka uusan mar walba ku dhaqmin baa layidhi wax dan u ah Maraykanka. marka waxa uu leeyahay annaga dal baan nahay, Maraykanka waa ka madax bannaanahay, sida Maraykanku ay rabaan markasta uma dhaqmi karno. wiil yar oo la naas nuujinaya oo hooyadii hayso oo tallaabada halka u dhigaya la eegaya ma nihin, dal madax bannaan oo ammaankiisa iskale ayaan nahay, inaan marka howlaan fulino innaga ayay naga yimaadeen ayuu leeyahay. madaxweyne Trump ayaa talaadadii sheegay in uusan ku faraxsanayn duqeymaha lagu qaaday dhinacaasi iyo weliba magaalada Dooxa ee waddanka Qatar. marka xiisadda hadda aad bay usii kululaanaysaa, marka aad dhinac kasta ka eegtana xaaladdu waa adag tahay. waxaa la socotay Yemen maanta la weeraray, shalay waxaa la weeraray magaaladii Dooxa ahayd, magaaladii Gaza ahayd. waxaa aragtaa ka dhacaya xaggee wax marayaan ma intaasoo keliyaha. Israa'iil maanta waxay ku dhawaaqeen inay sameeyeen guuto kale oo ciidamo ah oo ka howlgeli doona aagga waddanka Jordan ma loo socdaa? warbixintan aad ka ogaan doontaa. telefishinka la yiraahdo Al-Carabiya waxa uu leeyahay ciidamada Israa'iil ayaa maanta Arbacada shaaciyay in la dhameystiray dhismaha guutada la yiraahdo Gilcaad ama guutada 9 iyo 60 iyo waxa la yiri 96 taas oo si rasmi ah uga howlgalaysa xadka Urdun laga bilaabo harada loo yaqaan Tabariya ilaa iyo halka loo yaqaan Bahrul Mayit ama Dead Sea iyo dhulalka kale ee koonfureedka. halkaas iyo guutadan ka howlgalaysa. warbaahinta Israa'iil oo ku jira kan ayaa sheegtay in ay tani tahay guutadii ugu horeysay oo cusub oo la sameeyo muddo 46 sano kadib. ciidanka ayaa sheegay in guutadan cusub ay wajahayaan khataro aad u fara badan, sidaa daraaddeedna ay hadda muhiim tahay in la sameeyo. guutadan ayaa saldhig ka dhigatay qadkii hore ee amniga ee loo yaqaanay qadka biyaha, waxaana dhisayaba la yidhi xarumo lagu ururiyo xogta iyo kormeerka looga hortagayo tahriib iyo isku dayo weerar labadaba inta la guda galay sanadkii 2025. ciidanka Israa'iil
ayaa sheegay in ay falshaliyeen in ka badan 120 isku day oo gudaha la rabay in lagu soo galo wadankooda sida iyagu leeyihiin isla markaana ay ka hortagaan howlgalladaasi. guutadu waxay ka koobnaan doontaa cutubyo joogto ah iyo 15 guuto oo kale oo kayd ah kuwaasi oo xaaladaha degdega loogu talagalay inay ka qayb galaan. dhinaca kale golaha wasiirada amniga ee dagaalka ayaa go'aamiyay in la dhiso 5 guuto oo kale oo cusub oo uu yeelanaya xadka Urdun taasoo hadda muuqanaysa in Israa'iil ay ka gaashaamanayso weerar carabtu ay soo qaadaan. warbixinta Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in Urdun dhinaceeda wabiga Urdun ay bilowday dhismaha xarig ama aag difaac oo la jaan qaadaya Israa'iil iyadoo la xiriirta baa la yiri go'aanka dhaxal sugaha boqortooyada Urdun ee ah in dib loo soo celiyo adeega qasabka ah ee ciidanka markii ay howlgashay tan iyo 3 sano kadib. Urdun naftarkeeda waxay dareemaysaa xiisada inay ku soo socdaan marka waxay bilaabayaan in ay is abaabulaan. la iskuma muuqdo laakiin si hoose la isku arkayaa waa ku jeeda si hoose la isku leeyahay halkii la isdhihaa soo socday iyo diyaar garow. marka kuwan waa dhisanayaan ciidamo kuwan Urdunna waxay bilaabeen dhalinyarada yaryar in la ciidameeyo si hoose iyadoo aan banaanka la keenin. warar kale ee la xiriira ayaa sheegaya in dhawaan 8 askari oo Israa'iili ah si qalada ay uga gudbeen baa la yiri gudaha Urdun meel ku dhow waadi Caraba halkaasi oo ciidamada ilaalada xuduudaha Urdun ay qabteen kadibna baaritaan kooban kadib dib loogu celiyay Israa'iil iyadoo la raacay baa la yiri heshiiskii ammaanka ee labada dhinac. marka waxa la leeyahay niman Israa'iil ka tirsan ayaa gudaha u galay Urdun laakiin waxay yiraahdeen annaga waa soo lunay waxaan u maleynaynaa dhulkan inay joogaan waa la baaray waa la celiyay leeyahay. marka waxa laga yaabaa nimankan in ay xog raadinayeen oo iyagaba sahan ahaayeen. dhinaca Qatar haddaan dib u fiiriyo amiirka wadanka Qatar ayaa maanta waxa uu ahaa mid aad u mashquul ah tan iyo markii wadankiisa weerarka lagu soo qaaday waxana uu bilaabay soo dhaweynta madax kala duwan oo Carbeed kuwaas oo kala arrinsanaya sidii la yeeli lahaa xaaladda dagaalka. warbixintu waxay leedahay amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ayaa magaalada Doha ku soo dhaweeyay madaxweynaha isutaga Imaaraadka Carabta Mohammed bin Zayed Al Nahyan oo safar rasmi ah ku yimid magaalada Qatar ee caasimadda Qatar isagoo hogaaminaya wafdi aad u sareeya. Sheikh Mohammed bin Zayed ayaa ku celiyay in uu mar kale amiirka Qatar iyo dalkiisa Imaaraadka uu u muujinayo taageero midaysan oo la garab taagan yahay Qatar waxana uu hoosta ka xariiqay in wixii hadda ka dambeeya ay muhiim tahay ilaalinta madaxbanaanida dhuleed ee Carabta. madaxweynaha Imaaraadka ayaa sheegay in weerarka uu ahaa xadgudub cad isla markaana la aqbali karin. dhinaca kale dhaxal sugaha dalka Kuwait Sabah Khalid Al Ahmed Sabah ayaa sidoo kale maanta tagay magaalada Doha isagoo hogaaminayay wafdi rasmi ah. sidoo kale waxa maalinta berri ah magaalada Doha tagi doona Mohammed bin Salman. marka Carabtii oo dhan ayaa waxay tagayaan Doha iyagoo ujeedadu ay tahay in dalkaasi Qatar la garab istaago. Carabtu hadda waxay u muuqataa inay baraarugeen laakiin jawaabtu waxay tahay ma arsan doonaan. waqtiga ka jawaabaya soo dhawaada khiyaaray. Ramas Hotel and Restaurant waxa uu leeyahay adeeg dhameystiran waxaana ku diyaara qolol jiif oo heer sareeya hoolka aroosyada iyo shirarka maqaayad furan 24 saac oo leh raashin dheef iyo dhadhan macaan internet xawaare sare leh wiish iyo amni joogta. Ramas Hotel waa doorashadaada ugu fiican waxaana uu ku yaalaa Bakaaraha agagaarka isgoyska Carweydka.